ku salaamay. Magacaygu waa Cayuush Yuusuf Cabdulle, waxaan ku noolahay dalka Uganda. Aad ayaad u mahadsan tahay maadaama aadna siisay fursaddan wax isweydiinta ah. Waxaan wataa laba su'aal. Sida aad horay inoogu sheegtay, Sacuudiga waxa uu dhisi rabaa magaalo rabootyo oo keliya ay ku nool yihiin. Maadaama aynu nahay dad muslimiin ah, diinta maxay ka qabtaa rabootyo in la sameeyo? Midda kale, barnaamijyadaada xiisaha badan diyaarintoodu meeqa saac ayay kugu qaadataa? Ma wax difficulty ah baa qaabka aad u diyaarisid? Waxaan rajayn doonaa inaad iga soo jawaabtid. Mahadsanid. Hadafyada 2050 ee Sacuudiga mid ka mid ah waa dhisidda magaalo makiinado raboot ah oo keliya ay ku nool yihiin. Magaaladanina waxaa loogu magac daray Neom. Samaynta rabootyada iyo design-kooda ma jiro dadaal dheer iyo fatwooyin badan oo laga bixiyay. Qaar culimada ka mid ah waxa ay sheegaan in rabootku uu yahay nooc technology ka mid ah oo bani'aadamku u fududeynaya howlaha adag in lagu qabto sida kombiyuutarada oo kale. Waxa ay sidoo kale culimada ay sheegaan in aysan wanaagsanayn in rabootka loo yeelo suurad bani'aadamka oo kale. Waa in hadafka rabootka loo sameynayo uu ahaadaa u khidmaynta bulshada. Haddii shuruudahan iyo kuwa la midka ahba ay yihiin hadafyada rabootka loo sameynayo, ma jirto wax dembi ah oo ka hor istaagaya in raboot la sameeyo. Arrintanina waxaa wanaagsan qofka in uu la kaashado culimada. Su'aasha qaybteeda kale, barnaamijyadaada xiisaha badan diyaarintoodu meeqa saac ayay kugu qaadataa? Ma wax difficulty ah baa qaabka aad u diyaarisid? Waxaan rajaynayaa inaad iga jawaabtid. Diyaarinta barnaamijyada aan halkani soo geliyo waxa ay u kala qaybsan yihiin laba qaybood, kuwa fudud iyo kuwa dhib badan. Waxa ugu badan ee adag waa helista iyo akhrinta xog cusub. Mar haddii xog la helo, aad ay u fududahay saacad ama 2 saac in ka yar in barnaamijka lagu diyaariyo. Muuqaalada qaarkood waxa ay qaataan diyaarintooda ugu badnaan 3 saac, halka kuwa kalena ay qaataan 1 maalin ama 2 maalin wax ka sii badan. Tanina waxay hadba isku beddeshaa mawduuca aan ka hadli rabo. Si kooban, shaqo walba waxa ay leedahay dhib u gaar ah.